السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول ما أهن كلمة فتود waa erey xambaarsan wax badan oo tijaabooyin ah. Tajribooyinkaas oo qaar ka mid ah xambaarsan yihiin xanuun iyo niyad-jab, qaar kalena ay ka muuqdaan halgan iyo maamul wanaag soo socday muddo dheer. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa Dr. Cabdullaahi oo ka mid ah shakhsiyaadka guulaha gaaray kana gaaray dhanka caafimaadka. Wuxuu Dr. Cabdullaahi Maxamed Al-Rabiici ku dhashay magaalada barakeysan ee Makka Mukarrama sanadkii 1956. magaaladaas ayuu ku soo barbaaray ee magaalada caasimadda dalka Sacuudi Carabiya ee Riyaad. waxbarashadiisana ku soo qaatay ilaa heer jaamacadeed. Carruurnimadiisa aad ayuu u jeclaa aqoonta iyo cilmiga. maalmaha ka mid ah ayuu ka dhacay baaskiil oo kaxeynayay, taas oo sababtay inuu madaxa dhaawac ka gaaro. kadibna waxaa loola cararay dhakhtarka oo ka talay meeshii oo madax ka dilaacay asigoo aan dareenka ka soo celin. Dr. Cabdullaahi ayaa dareemay xanuun daran, laakiin waxaa dhiirigeliyay aabihii asigoo ku dhahay wiilkaydiiw adkayso, waxaad noqon doontaa dhakhtar qalliin, bukaankana waxaad daaweyn doontaa xanuun la'aan, waana lagu mahadin doonaa. kelmadaasi ka timid qalbi waalid oo naxariis badan ayaa ka dhigtay Dr. Cabdullaahi dhakhtar qalliin oo la mahdiyey. wuxuuna ahaa yaraantiisii arday dadaal badan, mar kastana niyadda ku haya sidii uu ku noqon lahaa dhakhtar qalliin oo caalami ah, bukaankana daaweeyo ayagoo aan dareemin wax xanuun ah, si uu u kasbado qulubta bukaanka. wuxuuna u arkayay dhakhtarnimada xirfad sharaf leh oo markasta baahi weyn u qabta bulshada. waa uu dadaalay Dr. Cabdullaahi, wuxuuna ka gudbay da'da 15 sano jir asigoo aanan maalin looga ashtakoonin waalidkii, waayo waa wiil leh hami sare, islamarkaana aan waqti u haynin boodboodka iyo sheeko beeraleyda. inta badan waqtiga ka dhumisa carruurta. sababtoo Dr. Cabdullaahi waa wiil hadaf cad leh, islamarkaana ku socdo qorshe, doonayana inuu xaqiijiyo yoolkiisa. waqti iyo dadaal badan ayuu ku bixiyay Dr. Cabdullaahi gaaridda yoolkiisa sharafta leh. markii uu dhammeeyay Dr. Cabdullaahi dugsiga sare, wuxuu ku biiray jaamacadda Boqor Sacuud, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka. ma ahayn Dr. Cabdullaahi arday caadi ah, ee markaas wuxuu jeclaa inuu ardayda kale wax badan ka bedelnaado. wuxuuna markasta geli jiray kaalinta koowaad, asigoo hormuud u noqday ardayda kulliyadda caafimaadka. kadib markii uu helay shahaadada koowaad ee caafimaadka sanadkii 1979 ayuu u safray dalka Kanada si uu u soo dhammaystirto waxbarashadiisa, asigoo ku biiray jaamacadda Alberta oo ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican waqooyiga qaaradda Ameerika. wuxuuna jaamacaddaasi ka baranayay cilmiga caafimaadka muddo 5 sano ah. muddadaas uu ka maqnaa qoyskiisa iyo waddankiisa, ilaa ay gabadhiisa yar ka codsatay hooyadeed inay iska iibiyaan aabbaheed, waayo waa waalid maqnaashihiisa badan yahay, islamarkaana aan la arag muddo 5 sano ah. Dr. Cabdullaahi ayaa ku takhasusay qalliinka carruurta, wuxuuna ku soo baxay dhakhtar qalliin oo aad u wanaagsan. markii ay u dhammaatay Dr. Cabdullaahi waxbarashada sanadkii 1985 ayuu go'aansaday inuu ku soo laabto waddankiisa, waayo waddankiisii fursadaha waxbarashada, islamarkaana ka dhigay nin mudan in lagu daydo, maadaama uu noqday dhakhtar qalliin ee ugu wanaagsan Sacuudiga, kuna takhasusay qalliinada ilmaha yaryar. Dr. Cabdullaahi ayaa asigoo ka heli kara dalka Kanada mushaar badan iyo nolol wanaagsan ka doortay waddankiisa Sacuudiga, oo ay ku yar yihiin dhakhaatiirta qalliin ee asal ahaan u dhashay dalka. Dr. Cabdullaahi ayaa ku takhasusay qalliinada carruurta isku dheggan, kaas oo ka dhigay dhakhtar caan ka ah dunida, taas oo keentay inay in badan ka hadlaan warbaahinta caalamka, islamarkaana ku tilmaamaan dhakhtar muslim ah oo naxariis badan, maadaama bukaankiisa uusan u kala saaraynin muslim iyo gaalo. naxariistaas iyo samafalkaas lagu sheegay Dr. Cabdullaahi ayaa sababtay in 2 waalid oo Kiristaan ah oo 2 cunug isaga dhegan yihiin inay Dr. Cabdullaahi u soo doontaan gurmad, kadib markii ay kaniisadaha Kiristaan ka diideen in ay siiyaan lacagtii ay carruurtooda isku dheggan qalliinka loogu samayn lahaa. Dr. Cabdullaahi ayaa si bilaash ah u kala jaray carruurtii ay dhaleen labadaas waalid ee Kiristaanka ah. kadibna 2dii waalid waxay qaateen diinta Islaamka, ayadoo Boqor Cabdullaahi Sacuudi ugu dhashay guri weyn tuuladooda, taas oo sii sababtay inay wada islaamaan dhammaan bulshadii ku nooleed tuuladaasi. Dr. Cabdullaahi ayaa ku guulaystay 7 qalliin oo carruur isku dheggan lagu kala jaray. waxaa kaloo ka mid ah bukaanada uu qalliinkooda ku guulaystay 2 gabdhood oo reer Poland ah, kuwa uu qalliin u sameeyey sanadkii 2001. 15 sano kadibna waa kan sawirka ay gabdhaha la galeen Dr. Cabdullaahi. sidoo kale wuxuu ku guulaystay 2 carruur ah oo Liibiyaan ah, kuwa oo isku dhegganaa, islamarkaana wadaagaya xubno badan oo muhiim ah sida kaadahaysta iyo lafdhabarta. camaliyadoodana ay ka cabsadaan dhakhaatiir badan, laakiin Dr. Cabdullaahi ayaa alle u fududeeyey oo ku guulaystay inuu kala jaro
labadaasi caruur isku dheggan ee Liibiyaanka ah. Wuxuu qoray Dr. Cabdulaahi 4 buug oo kaga sheekeynayo qalliinada carruurta isku dheggan, wuxuuna ku guuleystay abaalmarino caalami ah oo ugu horeyso mid laga siiyey waddankiisa Sacuudi Carabiya.